duuliye sare Cabdullaahi Weedow Maxamuud oo loo yaqaanay Weedow waa duuliye Itoobiya ay qabatay isla markaana ka soo baxsaday. Wuxuu sanadkii 1940 ku dhashay degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan, wuxuuna wax ku soo bartay dalweynaha Ruushka. Wuxuu xeel dheer ku ahaa gadgadoonka miiga asigoona hawada ku qori jiray Soomaaliya. Dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ee 1977 wuxuu burburiyay dhufaysyadii xabashida ugu cuslaa, waxaana hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garbaha ka galay xilli uu rabay in uu garaaco talis u dhawaa Addis Ababa. Raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyay in Soomaalida laga qabsaday miig 17 iyo duuliyihii waday, waxaana duuliye sare Weedow lagu amray inuu ku dego garoonka Debrecen. Markii uu hubsaday inay cagaha dhulka saareen diyaaradihii galbinayay isla markaana aysan ridi karin gantaal, ayuu xawaare ugu duulay hawada asigoo marba dhinac u rogayay miiga si aan loola helin rasaasta, waxaana lugta ka haleeshay mid ka mid ah rasaastii lagu soo riday. Cabdullaahi Weedow wuxuu diyaaradaha duulinayay muddo 20 sano ah, wuxuuna ka gaaray darajo ah ilaa iyo gaashaanle sare, waxaana la siiyay bilad geesinimo oo dahab ah. Wuxuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho bishii Oktoobar 1944. dagaalkii 77 ciidanka xoogga wuxuu ahaa 35,000 oo u kala baxayay 23 guuto oo infantry ah, 9 guuto oo taangiye ah, 9 guuto oo madaafiicda ah, 4 guuto oo ciidamada cirka ah, waxayna ciidamada cirka haysteen 52 diyaaradood.